maanta waxaan xidhi doonaa CCTV camera oo ah Hikvision oo ah kaamirada ugu professional security-san markaad receiver-ka sidan u daartid qalabkiina aad sidan isu gelisid waxaan sameynaa kaamirada Hikvision la dhahaa waatan receiver-kaasi wadataa laba kaamiro haysana receiver-ka waxaa ku xidhma afarta boorti receiver afar boorti oo kale 8 boorti la way jiraan afartan boorti waa afartii kaamirooyinka la gelinayay kani waa audio kan waa kii siinayay ama HD-ga siinayay ama siinayay projector-ka kan waa LAN oo ah waa xadhigii haddaad u baahatid inaad asanad ku xidhatid network ku gelinaysid kan waa xadhigii loogu talagalay inaad ku xidhid flash daatada kaga qaadid as flash ahaan then kow markaad sidan u start garaysid aad baasha daartid waxaa la odhanaysaa next waxay leedahay password iyo then passwordkii waxaad gelinaysaa receiver-ka kii u horreeyey oo ah bet 1 2 3 4 5 then next then waxaad odhanaysaa next waxaad doonaysaa baasha markay sidan kuu soo baxdo wizard waqtiga haddeer aad xidhisid baasha inaad gelisid timeka si aad u heshid inaad daatada waqtigaas markaas ku soo daabacdo IP ahaan waxaad odhanaysaa dynamic iga dhig then next ma doonaysaa inaad isticmaashid Hikvision oo aad mobilkaaga ku xidhatid Hik connection may next iga sii dheh next iga sii dheh hal hard disk baan haystaa halka hard disk ku xidh next haddaad doonaysid inaad hard disk format gelisid daatada hore ku jirtay waatan then next then okay imika waxaan xidhnay laba kaamiro oo ah Hikvision then markaa waxaan doonaynaa inaynu bal waxa ay duubeen daatada ah inaynu export garayno horta menu-ga tag menu-gani kow kan waxa weyn waa playback waxay duubtay ayaad dib u saaraysaa kan waa export waad ka daatada ka qaadasay kan waa via CA search waa data analyze markaad sameynaysid kan waa manual oo isagu waa markaad ay inta kaamira ay ku daaran ayuu sheegayaa waxaad ku xidhi kartaa kale in kaamirada aad alarm u samaysid oo kaamirada markay qof aragtaba inay qayliso tiraahdo then waxaad samaynaysaa back kan waa hard diskigii oo halka hard diski waa ku xidhan then back kan waa recorder hadday duubtay cod wax coda laakiin teenu may duubin waayo kuma jiro audio codka duubayay waa kan wax audio cod qaaday ma jiro kan waa kii qaaday daatada iyo dabkana baasha siinayay then back kan waa camera imse cameran haysana waxaan haysanaa D1 D2 D3 D4 imse camerada shidan waxaa shidan D1 iyo D4 back day configuration kan haddaba waa meeshii laga maamulayay haddaad doonaysa aas network ahaan inaad maamushid waa kan networkii dynamic host configuration-ka waxaad ka dhigaysaa inuu la isticmaalo dynamic haddaad alarm ka xidhaysid waa kan alarmkii markaad doonaysa inaad user cusub oo isticmaalo aad kusoo kordhisid haddaba waxaad odhanaysaa add userkaad gelinaysaa userka waxaa la dhahaa LCC admin passwordka halkan gelinaysaa admin passwordka wuxuu ahaa 1 2 3 4 5 next passwordka uu liibaan yeelan doono waa isla LCC 1 2 3 4 5 next waa LCC 1 2 3 4 5 next waxaan kusoo kordhinay user la dhahay LCC back shutdown log out haddaba maxay ku kala duwan yihiin administration-ka iyo user-ka la dhaho liibaan waxay ku kala duwan yihiin switch user dheh user-kaagii tag LCC kan tag waa LCC
1 2 3 4 5 okay okay de okay liibaan harddiskigi wax ma ka saari karaa may awood uma leeyahay harddiskigi boqol waayo qofka hadduu user yahay wuxuu awood u yeelan karaa inuu daatadaadii wax ka xado okay liibaan wax ma user ma ku soo dawri karaa may anigu ma password iska bedeli karaa laakiin waxaan ku dari karaa ma jirto liibaan network wax ma ka bedeli karaa may no permission wax permission uma haysto okay awoodo badan ayaa ka xidhan oo userka u furan harddiskigi ma arki karo oo no permission backup waan samayn karaa haa backupkii wuu furan yahay ma arki karo wax manuala data analyze haa waan samayn karaa okay insha Allah taala maanta casharkaas nagu sheegi doonaa bari ka qaadi doonaa habeen wanaagsan